isla markii daanyeerkii saaray tufaaxa madaxa abeesada weyn lafihii ayay isqabsadeen isla markiiba way soo nooleyd markii ay nooleyd abeesadii cas waxay bilowday inay eryato daanyeerkii wuu baqay oo wuu cararay balse ugu dambayn waa la qabtay abeesadii waxay tidhi ha baqin waxba kuma yeeli doono waxaan keliya u baahanahay caawimaad ilahow jannada geey qofkiisa qoraa magaca allah sina shara garaya oo kobiili isagoo cabsi leh ayuu yidhi haye waan ku caawinayaa laakiin dhaqso saaxiibkay ayaa halis ku jira abeesadii waxay u kaxaysay daanyeerkii xaaskiisii oo dhimatay oo ay ka hareen lafaha keliya waxay tidhi tufaaxan madaxa saar isla markii uu daanyeerkii saaray tufaaxa madaxeeda isla markiiba way soo nooleyd abeesadii aad ayay u faraxday waxayna uga mahadcelisay daanyeerkii wuxuu yidhi hadda isii daa waan degdegayaa laakiin markaas abeeso cagaaran ayaa timid waxay qabatay daanyeerkii geed ayay ku xirtay kadibna waxay la tagtay abeesadii cas daanyeerkii wuxuu naftiisa ku yidhi dadku waa abaallaawayaal xitaa wanaag laguma soo celiyo wanaag muddo kadib jiir yar ayaa meesha yimid wuxuu arkay daanyeerkii wuxuuna weydiiyey yaa ku xihay daanyeerkii isagoo murugaysan ayuu yidhi dad qaar wanaag looma sameeyo jiirkii wuxuu yidhi waan ku sii dayn karaa laakiin hal shuruud waa inaad dadka ii badbaadisaa weerarka baranbarada daanyeerkii si degdeg ah ayuu u yidhi waan ku ballanqaadayaa waan ku badbaadinayaa laakiin marka hore waa inaan saaxiibkay u tagaa jiirkii ilkihiisa fiiqan ayuu ku jaray xarigii daanyeerkiina wuu xoroobay isla markiiba wuu orday wuxuu aaday boqorka keynta libaaxa wuxuuna yidhi halkan waxa yaal tufaax sixir ah libaaxii wuxuu yidhi daanyeer isla markiiba u gee tufaaxan shabeelka noloshiisu halis ayay ku jirtaa daanyeerkii isagoon wakhti lumin ayuu u orday shabeelka la soco qaybta xigta